هاي أقيارتا سو دبادة مقالكين maanta wuxuu ku bilaabanaya hawada South Africa waxa lagu arkaya waxaan la aqoonin dadkoo dhan way ka yaabin yihiin waxay yihiin waxaan laakiin culimada South Africa ayaa waxay ogaanayso inay tahay subxaanada duusho waxaan isla markii weerarayo ama u tagayo helicopter waxaana gaarayo ciidanka qaaska ee dawladdaas markii ciidan gudaha u galaan waxay arki doonaan waxay ka soo yaabeen u tagi doona meesha qoom kale aan la aqoonin waxayna ahayn qoomkan kuwa ay ka dhan wareersan waxaana ka halaabay subxaanada duusho ee watiin saynisyahanada South Africa waxay ogaanayaan inay yihiin 1 milyan oo ah qoom kale oo la aqoonin waxaana dawladda diyaarinaysaa meel ay degaan waxayna naqanaysaa qaxootiga ugu horeeyay oo ka imaado meel aan la aqoon waxaan loo diyaarinayaa Johannesburg meel kamid ah inay degaan qoomkan la aqoonin dadkii ka yimid meesha la aqoonin waxay naqanayaan qaxootigii South Africa qaatay dawladdan waxay u qoondeynaysaa lacag aan caadi ahayn laakiin isla markii waxa ka soo jeesanayo oo si xibar ku ridaysa shacabka South Africa ayagoo meel kasta ku soo qorayo ma rabno anaka inaan si aragno qoomkan aan la aqoonin waxayna dibadbax ka sameynayaan magaalooyinka ugu waaweyn South Africa isla markiina waxa ka jawaabayo company lagu magacaabo Maniu company-gan ay wuxuu sheegayo inuu asiga qaadanayo dhammaan dadka la aqoonin oo 1 milyan ah wuxuuna company-gan leeyahay waxaan balan qaadaya dadkan aan la aqoonin caafimaadkooda iyo meel ay degaan ayaan siinaya isla markiina company-gan wuxuu ku dhawaaqaya inuu ka wadi doono magaalada Johannesburg wuxuuna geey doonaa meel ka fog magaalada South Africa oo u dhow xuduudka South Africa isla waqtigaas company-gan wuxuu ka helayaa qoryo ay wateen dadkan aan la aqoonin qoryahaas ay wuxuu ku sameynayaan baaritaan qorigan ay wataan qoonka la aqoonin waa qoryo aad u awood badan dadkana ay u baahan yihiin qolooyin ku takhasusay baarista hubka iyo waxyaabaha kiimikada ayaa isla markii waxay baarayaan hubka ay wateen qolooyinkan la aqoonin hubkan ma ridi karaan bilaadanka sababtoo ah wuxuu ku shaqeeyaa DNA-ga qoomkan aan la aqoonin wax riska bacdi waxa arkeena dadkan aan la aqoonin xirada loo sameeyay dhexdooda ku sameynayo waxyaabo kiimika ah waxyaabahan kiimikada ah la wada sameynayso waxa lagu magacaabaa Shaq iyo Chris ayaa waxay rabaan inay ka faktaan meeshan ay ka baxsadaan halkan waxayna rabaan inay dib u kiciyaan suuxaantooda duusha oo ugu halawday hawada South Africa waxay isku dardarayaan waxyaabo aan la aqoonin waxyaabahaas oo kala imaadeen hawada sare waxyaabaha waxay ka kooban yihiin waxyaabo dheecaankooda ah iyo waxyaabo kale oo ka wadaan shidaalka ay kicinayaan suuxaanta duusha isla waqtigaas waxa soo gaarayo qolo booliis ah iyo qolo saynisyahano ah isla waqtigaas waxa soo baxayo Shark oo ahaa qolooyinkan la aqoonin mid kamid ah isla markiina Shark waxa lagu dhufanayaa xabad wuxuuna isku dayayaa markii hore inuu dagaalamo laakiin waxa fakanayo Chris oo ah saaxiibkiis qolooyinka saynisyahanada iyo ciidanka sirdoonka waxay iska duwayaan video meesha waxaana galayo nin saynisyahan oo caan ah asigoo isku sawirayo waxyaabahaas wuxuuna leeyahay waxaana qabanay sheebaar ay ku lahaayeen xarunta qaxootiga ee South Africa u sameysay dadkan aan la aqoonin isla waqtigii ninkii fanka badnaa saynisyahanka ahaa wuxuu taxtaawanayaa waxyaabihii dadkan ay sameynayaan isla markiina waxa ku soo faniinayo waxyaabahaas waxayna ugu faniinayaan wajiga saynisyahankii aad ay u xanuunsanayaa wuxuuna ku leeyahay iga damiye kaamirada waxaan laga daminayaa kaamirada saynisyahankii wuu xanuunsanayaa waxaana loo qaadayaa isbitaal waxa lagu casuumay xaflad oo loo hambalyeeyo laakiin xafladii wuu ku suuxayaa wuuna ku dhacayaa waxa la geenayaa isbitaalka dhakhtarka gacantii ka duuduubneeday oo ka gaaray waxyaabaha kiimikada ahaa ayuu isla markii wuxuu isleeyahay dhakhtarka gacanta ka fur dhakhtarkii asigoo gacanta ka furayo hal mar markuu gacanta dhameeyo waxa soo bixi doonto gacanta dadkaan la aqoonin camal gacan ah isla markii waxa sheekada maqlaayo booliiska waxayna soo gaarayaan si dhaqsi ah isbitaalka booliiskii ayaa waxay ku wadayaan si xoog ah ninkii saynisyahanka ahaa waxayna u kaxeynayaan kambanigii qaatay shaqooyinkan dadka ka yimid hawada sare ama loo yaqaan alieniska waxa la keenay saynisyahankii laabka shirkadii waxaana baaritaan lagu sameynayaa jirkiisa kambanigii wuxuu ogaanayaa hubka alienka ee ka soo heleen dayax gacmeedka inay isticmaali karaan maanta ka bacdi waxayna leeyihiin waxa uu isticmaaleynaa ninkan isla markii ninka jirkiisa oo dhan waxa ku saar DNA-ga dadkaan la aqoonin ama alieniska dhaqaatiirtii iyo saynisyahan u soo wadayaan meel ay ku xareeyeen hubka dadka la aqoonin ama alieniska hubkaas ay isla markii ku tijaabinayaan hubkan wuxuu dhacayaa si cajiib ah waxayna ku tijaabinayaan gacantii saynisyahanka kambanigii wuxuu ku farxayaa inay ku guuleysteen tijaabada ugu horeysay ee hubka waxayna ka shaqaysiiyeen hub saynisyahanadii iyo dhaqaatiirtii wuxuu soo wadayaan ninkii saynisyahanka ahaa isbitaalka waxayna leeyihiin ninkan waa inaan sameynaa labadaas mid oo ah inay gacanta ka gooyaan ay gacanta baxsadaan si u dagaalamaan hubkaas ama ay ninkan oo dhan ka taqalusaan saynisyahankii wuxuu laynayaa saynisyahanada kale wuxuuna ka soo fakanayaa kambanigii sameynayay testigan saynisyahankii wuu soo fakanayaa wuuna soo baxayaa asigoo yaaban waxa gacantiisa ku dhacay isla waqtigaas wuxuu la kulmayaa mid kamid ah oo sameynayay waxyaabahan kaasoo ah Chris wuxuu fahmayaa wax walba markuu aragyo gacantiisa Chris ayaa wuxuu u sheegay wax far badan oo sir ah saynisyahankan wuxuuna u sheegayaa Chris dadkan si ku bixi lahaayeen inuu diyaarinayo wuxuuna tusayaa qolal oo ka sameeyay meesha kaanka ah oo ku diyaarinayo waxyaabo oo ku kicinayo suuxaanta duusha Chris iyo ninkii saynisyahankii way soo raacayaan waxayna hor u soo kaxaysanayaan kuwa kamid ah dadkaan la aqoon ama alieniska waxayna weerar ku soo qaadayaan kambaniga saynisyahanada joogeen oo ku baarayeen dadkaan alieniska Chris wuxuu meesha ku arkayaa dad fara badan oo dadkaan la aqoonin ah oo meesha lagu dilay ayagoo saynisyahanada ka baarayo cilmi fara badan waxayna jirkooda ku sameynayeen qaliin ay ku rabaan inay ogaadaan sida uu shaqeeyo jirkooda iyo wuxuu ka samaysan yahay jirkooda isla markii waxa soo weerarayo qolo ka tirsan qolada kambaniga ilaalisa oo suurtooda
guryahooda ah wayna iska xabadeynayaan markiiba waxay weynayaan meelay ka baxaan laakiin Chris ayaa wuxuu wado bamba cajiib ah bambadan ayaa wuxuu ku tuurayaa derbiga isla markii kala fuqaayo waxayna arkayaan gawaari taalo meel banaan gawaaridii taale mid kamid ah ay soo qaadanayaan waxayna iskaga soo fakanayaan company-ga iyo ereeyadiisa oo dhan Chris iyo ninkii saynisyahanka ahaa waxay imaanayaan meeshaas ku diyaariyeen dadkan si u bixi lahaayeen laakiin Chris iyo ninkii saynisyahanka ahaa waxay isku fahmi weynayaan meeshaas waxaan dhaxmarayso dood aad u fara badan doodaas ka bacdi Chris waxa lagu dhufanayaa iyadoo lagu dhufanayo madaxa Chris meesha ay ku suuxaya isla markiina wuxuu isku dayaa saynisyahankii inuu soo qaato markab yar oo ku soo aadayo suuxantan duusho oo yar ayaa isla markii waxay arkayaan ciidanka ee baadi goob ku waday ninkii saynisyahanka ahaa iyo Chris laakiin Chris isla markii waxa la soo ridayaa markabkiisa saynisyahankii waxa gacanta ku soo dhigayo askarta waxayna xirayaan saynisyahanka oo la sii waday waxa wadada ku qabsanayso askarta qolo burcad ah oo South Africans ah qolada burcadkeeda waxay weeraraysaa gaariga oo saarnaa saynisyahanka isla waqtigaasna waxay ku dhufanayaan qoriga loo yaqaano RGBT ama 2 waxay kala soo baxayaan baabuurkii qunfulnay ama beebaha saynisyahanka waxayna u soo kaxaysanayaan meelo qaas ay leeyihiin qolooyinkan gangsterska ah qolooyinkii gangsterka ahaa waxay u sheegayaan waxa rabna qoryaha ee wataan dadkan aan la aqoonin ama alienskan waxayna leeyihiin gacanta noo soo fuji ama waan ku dilaynaa ninka hogaaminayay burcadtan wuxuu ku fikirayaa gacanta inuu cuno oo karsado markaasna wuxuu ku fikirayaa inuu yeelo doono gacantaasi camal Chris oo jooga xaafadiisa ayaa wuxuu soo dirayo computer ama bootkaana uu awoodo inuu dadka hal mar wada dilo bootkan hal mar ayuu wuxuu ka taqalusayaa kuwii gangsterska ahaayeen bootki markuu dilo kuwa gangsterada ahaa wuxuu soo kaxay doonaa ninkii saynisyahanka ahaa asigoo u kala furaayo meel albaab camal ah ninkii saynisyahanka ahaa wuxuu soo raaci doonaa bootkaas asigoo xukumi doono maanta ka bacdi bootkaas qolooyin ciidan ah ayaa waqtigaas waxay haysteen Chris ayuu waxay ku dilayeen meel banaan ah laakiin ninkii saynisyahanka ahaa oo wato bootkii awoodda badnaa ayaa ka soo gaarayo wuxuuna weerarayaa ama ka dilayaa ciidankii haystay Chris iyo ninkii saynisyahanka ahaa waxay u soo cararayaan meesha ka jirto suuxaanta duusho laakiin ninkii saynisyahanka ahaa boodkoo watay ayaa waxaa la haleelayaa xabado waxaana soo gaarayo damage aad u fara badan boodka wuxuuna naqanayaa boodkii mid isdamiyo laakiin Chris oo wato kofar ayaa wuxuu u sheegi doono inuuna ka haraynin oona kaligiis ugu tegi doonin ninkii saynisyahanka ahaa meesha laakiin ninkii saynisyahanka ayaa wuxuu ku leeyahay halkan waa meeshaan joogi jiray weligay waana dhulkayga ee iska bax adiga ee raac suuxaanta duusho Chris ayaa isla markii hadalkaas maqlaayo wuxuuna raacayaa suuxaanta duusho Chris wuxuu kicinayaa suuxaantii duusho waxayna hal mar ka tegaysaa hawada South Africa waxaana dadkoo dhan arkayaan suuxaan duusho oo sii baxayso maalmo ka bacdi waxaa arkaynaa ninkii saynisyahanka ahaa oo isku bedelay asiga dhan qolooyinkan aan la aqoon amba alienskan laakiin wuxuu sugayaa inuu usoo noqdo Chris muuqaalkeena maanta wuxuu ku egyahay intaan ku kulmayno muuqaalka camal waxaan kaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh